assalaamu calaykum waa xikmado xambaarsan xalinta mushkiladahaaga qayb ka mid ah ee wax uun ka faa'iid. Ka fogow sheekada wakhtigaad caraysan tahay, laga yaabaa in uu hadalkaaga sax yahay balse asluubtaada ay fool xun tahay. Maalka waa shaqaale wanaagsan laakiin waa sayid faasid ah wax fasahaadiya. Mararka qaar dadka ma doonayaan in ay xaqiiqada maqlaan maxaa yeelay badankooda ma doonayaan in ay arkaan hamigooda iyo riyooyinkooda oo burburaya maxaa yeelay qaarkood ayaa laga yaabaa in ay riyooyinkooda ku salaysnaayeen been iyo male awaal. Ma doonaysaa inaad ogaato xaqiiqada ku jirta qof walba gudihiisa? Waxaad dhegaysataa waqtiga ay kaftamayaan, waxaadna fasirataa erayadooda qayb ka mid ah, waxaadna u fasirataa dhinac walbo. Kalsoonidu waxay u baahan tahay dhismaheeda sanado badan halka duminteedu ay kaaga baahan tahay ilbiriqsiyo, maslaxadeeduna ay kaaga baahan tahay zaman. Biyuhu waxay dhaqaan wax walba oo wasakh ah, kaliya waxaysan dhaqi karin carabka wasakhda badan oo xanta iyo beenta badan. Dadka daciifiinta ah way argoostaan, dadka awoodda badanna way iska cafiyaan, halka dadka aqliga badan ay ishilmaamsiiyaan. Waxaad noqotaa mid aamusan, waxaad noqonaysaa mid aamin ah oo ka ammaan helay dadka oo dhan. Aamusnaantu ebedkeeda wax ma qiyaamto. Insaanka aqliga badan waxa uu xaliyaa mushkiladda, halka insaanka xakiimka badan xikmadda leh uu ka fogaado.